بسم الله الرحمن الرحيم qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah xuutiyiinta Yemen oo weerarkii labaad ku qaaday caawa gudaha Israa'iil magaalada Eilat ee badda casaaran oo si joogta ah xuutiyiintu ay u weeraraan ayaa hadda waxa laga bilaabay diyaarinta godad dheeraad ah oo gabaad ah oo gantaalada looga gambado Xamaas oo bilowday inay soo ururiso lafihii iyo haraagii meydadka Israa'iiliyiinta iyadoo ay dowdahay in la gaaro heshiis lagu soo afjarayo dagaalka Gaza Donald Trump oo isna rajo ka muujiyay heshiiskaasi in lagu guuleysto aqalka sanadka ee Mareykanka oo markii ugu horeysay looga doodi doono aqoonsiga dawlad Falastiiniyiinta ay yeeshaan Iran oo si cad u sheegtay inaysan habboonayn iskaashi xilligan ay la yeelato hay'adda caalamiga ee tamarta atomikada ee IAEA hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo sheegay in dalkiisu u diyaarsan yahay halis uga timaada dhaqdhaqaaqa ciidamada Mareykanku ay ka wadaan Kuuriyada Koonfureed sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aridii kugu hayaana waxay ku aadan tahay waad jeceshahay carruurtaada inaad ka farxiso gaarigan raaxada ee Mercedes-ka oo iibin lahayd carruurtaada dabcan haddaad jeceshahay laakiin jeebkaaga waa inuu buuran yahay gaarigan oo qiimihiisu uu yahay ku dhawaad $50,000 ayaa la soo bandhigay sheeko xiiso leh oo barnaamijka xagga dambe aan idinkugu hayno dhabaan qodobadan iyo kuwa kaloo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kornay intaan hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijna xiisadda nuclear-ka ee Iran oo war uu ka soo kornay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ayaa hadal maanta uu jeediyay waxa uu ku sheegay in iskaashi dhexmara dalkiisa iyo hay'adda caalamiga ah ee tamarta nuclear-ka ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA uusan hadda habboonayn kadib markii Iran dib loogu soo rogay cunaqabatayntii qaramada midoobay sababo la xiriira barnaamijkeeda nuclear-ka go'aano cusub waa in la qaataa aniga aragtidayda heshiiskii Qaahira hadda ma habboona xaaladda jirta ayuu yiri Araghchi oo la hadlayay diblomaasiyiin shisheeye isagoo intaasi ku daray in heshiiskii bishii hore Iran ay la gashay hay'adda IAEA ka dhacay dalkaasi Masar uu qeexayay nooca iskaashiga ee u dhaxeeya labada dhinac wuxuu yiri Araghchi heshiiskii Qaahira mar dambe ma noqon karo saldhigga iskaashiga naga dhaxeeya annaga iyo hay'adda caalamiga ee tamarta nuclear-ka ee IAEA isagoo intaasi ku daray in go'aan ku saabsan xiriirkaasi mar dhow la soo saari doono Tehran ayaa hakisay iskaashigii ay la lahayd hay'adda qaramada midoobay bishii July kadib markii Israa'iil iyo Mareykanka duqeymo ay ku beegsadeen xarumaha nuclear-ka ee Iran intii lagu jiray dagaal 12 maalmood socday oo dhacay bishii June cunaqabatayntii adkayd ayaa dib loogu soo rogay Iran kadib markii Britain Faransiiska iyo Jarmalku ay qaateen nidaamka dib u soo celinta degdega ah oo qayb ka ahaa heshiiskii horey loo gaaray 2015 ee dib loo soo celin karo cunaqabataynta haddii is-afgarawaa uu dhaco Tehran marar badan waxa ay ka digtay in dib loo soo celiyo cunaqabataynta iyadoo siyaasiyiin badan oo reer Iran ay ku baaqayaan in dalka uu iskaga baxo heshiiska ka hortagga faafitaanka hubka nuclear-ka ee loo yaqaan NPT kaas oo dalalka saxiixay ku waajibinaya in xarumahooda nuclear-ka la hoosgeeyo kormeerka hay'adda IAEA barnaamijka nuclear-ka ee Iran ayaa sababta u weyn waxa uu ka yahay xiisadda u dhaxaysa Iran iyo reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka kaas oo isaga iyo Israa'iil oo gardaadiyo ay tuhunsan yihiin in Tehran ay doonayso samaysashada hub nuclear laakiin Iran markaas waxay ku adkaysanaysaa inaysan doonayn in ay samaysato hub nuclear laakiin ay doonayso inay u isticmaasho tamarta nuclear-ka ujeedooyin nabadeed sida soo saarista korontada xiisadan marka laga gudbo aynu eegnay xiisad kale oo taagan waa gacanka Korea halkaasi oo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un hadal cusub oo ujeediyay uu sheegay in dalkiisa uu diyaarsaday agab dagaal oo istiraatiiji ah si uu uga jawaabo dhismaha military ee Mareykanka uu ka wado Kuuriyada Koonfureed isla markaasna wuxuu ballan qaaday tillaabooyin military oo dheeraad ah Kim Jong-un ayaa hadaladan ka sheegay
bandhig military oo la qabtay maalmo ka hor xuska sanad guurada 8aad ee aasaaska xisbiga shaqaalaha ee Korea sida ay ku waramayso wakaaladda wararka ee Koreada Waqooyi ee magaceeda loo soo gaabiyo KCNA. Kim Jong-un waxaa sidoo kale uu xusay in Koreada Waqooyi shaki la'aan ay horumarin doonto tillaabooyin military oo dheeraad ah si ay isugu diyaariso inay ka jawaabto kordhinta ciidamada Mareykanka, balse waxa uu dibnaha uu ka qabsaday faahfaahin dheeraad ah inuu ka bixiyo tillaabooyinkaasi waxa ay noqon doonaan. Hadaladan ayaa waxa imaanayaan xilli Koreada Waqooyi ay xoojinayso xiriirkeeda military ee ay la leedahay Ruushka. Sida ay sheegeen saraakiisha Koreada Koonfureed oo ay xifaaltamaan Koreada Waqooyi, heshiiskaasi waxaa qayb ka ah taageerada ciidamada Ruushka ee dagaalka Ukraine ku jira oo Koreada Waqooyi ay ku baritaartay ciidamo iyo madaafiic. Kim Jong-un ayaa sidoo kale wuxuu xoojiyey xiriirka iyo isbahaysiga uu la leeyahay Shiinaha isagoo dhawaan socdaal ku tagay magaalada Beijing si uga qayb galo dabaaldega military oo lagu xuseeyay 8 sano guuradii dhamaadkii dagaalkii labaad ee adduunka, iyadoo kulankaasina goobjoog uu ka ahaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo labada nin halkaasi uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay ee Gaza. aqalka sanadka ee waddanka Mareykanka oo markii ugu horeysay laga doodayo mooshin ku aadan in Mareykanku aqoonsado dowladnimada Falastiin. waxaan kaloo idiin soo gudbinaynaa Israa'iil oo godad hor leh qodanaysa kadib markii Xuutigu weerarada ay nafta ugu keeneen. intaan u gudbin wararkaasi iyo qodobo kale aynu ku hakanno iyo waliba wadahadaladii socday iyo Israa'iil oo warar ay ka soo kordhayaan iyo aqalka sanadka ee Mareykanka oo looga doodayo mooshin ku aadan aqoonsiga dowlad Falastiiniintu ay yeeshaan. waxaynu ku hormaraynaa weerar labaad oo Xuutigu saacado gudahooda ay ku qaadeen Israa'iil, iyadoo Xuutiyiintu jiif iyo joog ay u diideen Israa'iil, waxaana ay Xuutiyiintu wacad ku mareen in inta Israa'iil ay duqeynayso oo dadka reer Gaza hurdo aysan leedayn, Israa'iiliintu inaysan leedayn. maanta wararkayga waxaan idinkugu soo gudbinay in gantaal nooca hypersoniga Xuutigu inay ku weerareen gudaha Israa'iil, taasi oo sababtay in garoonka dayuuradaha Ben Gurion shaqadii uu joojiyo. caawa mar kale Xuutigu weerar kale ayay qaadeen, markan waa magaalada Eilat oo joogto u noqotay weerarada Xuutiyiinta. magaaladan oo Falastiiniintu ay ugu yeeraan Rashrash waxay saaran tahay badda Cas. haddaba wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan waxaa lagu soo warramayaa in Xuutigu ay diyaaradda nooca droniska ku weerareen magaaladaasi, waxaana tani ay imaanaysaa 7 iyo bar kadib markii Xuutiyiintu diyaarad drone ah oo isqarxisa ay ku dhacday bartamaha magaalada loo dalxiis ka tago, halkaasi oo sida Israa'iil ay ku andacootay 50 qof dhaawacyo uu soo gaaray, kuwaasi oo qaarkood dhaawacyadooda ay halis ahaayeen. waxaana wararku taasi ay ku darayaan in diyaarad ku soo degaysay garoonka diyuuradaha ee magaaladaasi wadada ay ka baxday kadib markii khalqal ay gashay, laakiin lama soo sheegin wax khasaara. Siiriga digniinta ka bixiya gantaalada ayaa isqabsaday magaalada, waxaana la sheegayaa dhaqaaqyada ciidamadu in halkaasi ay ka fuliyeen hawlgallo ay kaga hortagayaan diyaaraddaasi. war ka soo baxay militariga Israa'iil ayaa waxaa lagu andacooday in la soo riday diyuuraddaasi. dhinaca kale mas'uuliyiinta magaaladaasi ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay haatan diyaarinayaan godad loogu talagalay in looga gabado gantaalada, waxaana la sheegayaa in aan la sugi karin dhismaha godadkaasi, laakiin waxaa la diyaariyey godad guurguuri kara sida gurigii oo kale, laakiin loogu talagalay dhufays ahaan in meelaha qaarkood la dhigo. waxaana la sheegayaa bartamaha magaalada in la dhigi doono bacdama magaaladan ay saaran tahay xeebta badda Cas, dad badan oo dalxiisayaal ay tagaan. dekada magaaladan ayaa gebi ahaanba xirantay dhowr iyo 20 bilood ee dagaalka Gaza uu socday kadib markii Xuutigu ay gebi ahaanba joojiyeen maraakiibtii imaanaysay iyo kuwii dekadaasi alaabaha ka qaadi jiray, taasi oo keentay in shaqaalihii la kala diro dekadaasi. waagay markan bal xaggaasi iyo wararka la xiriira dagaalka Gaza iyo heshiiska socda, gaar ahaan wadahadalada ka socda waddankaasi waddanka Masar. haddii aynu eegno madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rajo ka muujiyey in heshiis la gaaro. wuxuu leeyahay Israa'iil, Carabta iyo adduunyada oo idilba waxay doonaysaa gobolka bariga dhexe inuu noqdo mid nabad ah, si hadalka uu dhigaya. Trump wuxuu sheegay in wada xaajoodyadu ay ku socdaan si wanaagsan, isla markaasna dhawaan la soo dayi doono maxaabiista. dhanka Falastiiniyiinta warar laga helayo
dhanka Xamaas ayaa waxa ay sheegayaan in ururka haatan uu bilaabay ururinta lafihii iyo haraagii meydadka maxaabiista Israa'iil kuwaasoo ku kala firirsan marka Gaza waxaan ururka u dalbanayaa Israa'iil in ay joojiso duqeymaha cirka si ay u suurta gasho in hawshaasi ay dhamaystiraan sida ay sheegeen ilo wareedida wareejinta meydadka ayaa waxa la sheegay inay qaadan doonto waqti arrintan waxa lagu soo warramayaa Mareykanka in uu fahamsan yahay inay qaadan karto waqtigaasi waxa kale wararku taasi ay ku daarayaan in Xamaas ay heshay damaanad qaad Mareykanka ka imaanaya oo ku qasbaya Israa'iil in aysan dib u bilaabin dagaalka isla markaasna ciidankeeda ay kala baxda Mareykanka Gaza haddii Xamaas ay maxaabiista idin soo wareejiso ilo wareedida waxay sheegayaan in sidoo kale Xamaas ay ogolaatay in hay'ad Falastiiniya iyo Masaariya ay markaasi maamusho Mareykanka Gaza iyada kormeerayaal caalami ah dusha ay kala soconayaan arrimaha hubka ayaa waxay yihiin waxyaabaha la isku hayo oo dhowrka maalmood ee soo socdana si weyn looga doodi doono وهجاك حق إسرائيل أنت إنك بحن وحد صار عين تين برامج كوتشرنا ورشيجية إن وزير هذا ما يلقى عدد كوتشر حكومة نتنياهو ووزير كمالية ده بازل الإسمتريش وزير كأمريكا قرن كإتمار بنغفير إن أوجلادين ويتشج كواد إهشيسك لكن وحي يرهدين حدي عاد إسكت ضيده حماس أو هو كدجين ديال كنا جوجيسو حكومة وكبحينا لكن waxa la arrinta waa laga tashaday Mareykanku wuxuu diyaariyay qorshe kale oo ah hadii xukuumadda ay ka baxaan qolyahan in ay soo galaan kuwa kale mucaaradka sida Yair Lapid dhowr jir ku celceliyay oo uu leeyahay shabaqa kanaacada ayaan xukuumadda Netanyahu siin doona macnaha badbaado aan rasmi ahayn ayaa la siin doona oo macnaheedu ay tahay oo kale in la dhiso dawlad wadaaga hadda markii nimanka runta loo sheegay mid kale wadamada Yurub أنا قبتين بيسعرن حتى أمريكا كلفتي دي عرتنا كهري مادان صورة قال واحد تلاوين وكقعدان ليه ترى ماشي الصعود بهذا واحد ليه هي ضيال كأنه صعب شراء يدونه يا وريبه وحياة بدون إسرائيل أي سرمين أي قص بيا وسيادة الله ليه إنك صدد بدن ليهين هذا كهرباء مركل الشيئين إسقلاف سيهين وتي إيران لو يرضي مركا موحوا قرصون مداعد بكتها أرنتن لما أوجا لكن هذا أرنتها كاسي مريسا Mareykanka isbedelada socda hadaynu eegno waa markii ugu horeysay ee aqalka sanadka ee Mareykanka la hor keeno qaanuun lagu dalbanayo in la aqoonsado dawlad Falastiinta ay yeeshaan arrintan waxay qayb ka tahay isbedelka socda oo la doonayo dadka Falastiiniinta inay xuquuqdooda ku helaan waaba hadii la ogol yahay haddaba aynu eegno warbixin amurahan ku aadan markii ugu horeysay taariikhda sanadka Mareykanka malafka aqoonsiga dawlad Falastiini ayaa wuxuu hor yaalaa guddiga arrimaha dibadda iyadoo lagu xiray laba shuruud maxay yihiin labadaasi shuruud haddaba aynu eegno arrintan oo ku sii soconno golaha siyaasadda iyo warbaahinta ee Mareykanka iyo goobaha kale ee lagu falanqeeyo siyaasadda ayaa waxaa la sheegayaa in markii ugu horeysay laga hadlayo sharciyeynta xaqa dawlad Falastiiniintu ay yeeshaan iyadoo arrintan doodada laga bilaabi doono golaha sanadka senator caan ah ayaa waxay ka hadleen dadaan dhab ah oo heer qaanuun ah oo lagu doonayo in lagu galo dood ku saabsan aqoonsiga dawlad Falastiiniinta ay yeesho laakiin shuruudaha waxay yihiin in dawladdaasi aysan noqon dawlad military leh macnaha saacaboolay ah iyo in ay damaanad qaado ammaanka Israa'iil iyadoo sidaasi ay tahay maalmaha soo socda waxa la filayaa in senatorro badan ay saxiixaan hindise qaanuun oo loo gudbiyay guddiga arrimaha dibadda ee aqalka sanadka si loogu codeeyo arrintan bartamaha bishan ama bish soo socota inkastoo qaraarka uu leeyahay ereyo xasaasiya haddana lama filayo inuu la kulmo mucaaradad weyn oo ka timaada taageerayaasha u heelan xuquuqda Falastiiniyiinta iyadoo markaana ay muuqato in la doonayo mawduucan inuu noqdo dood furan oo dadweyne qaraarka la barkiisu waa 410 waa qaraar rasmi ah waxa loo gudbiyay guddiga arrimaha dibadda ee Koongareeska Mareykanka asbuucii hore wuxuuna ku baaqayaa in madaxweynaha Mareykanka uu aqoonsado dawlad Falastiiniintu ay yeeshaan oo aan hubaysnayn oo ka hareer dhisan Israa'iil oo ammaan ah iyadoo la raacayo qawaaniinta caalamiga iyo mabda'a xalka laba dawladood qaraarkan waxaa sanadka loo soo gudbiyay 18 bishii Sebtembar 2025 waxaana si rasmi ah loogu gudbiyay guddiga arrimaha dibadda ee sanadka waxaa la filayaa in loo codeeyo bartamaha bishan ama bisha November inkastoo ay badan tahay bisha November inkastoo la sheegayo inuusan dhaafi doonin xilligaasi sabab la xiriira aqlabiyadda xisbiga ee jamhuuriga ee sanadka
qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in la aqoonsado dowlad Falastiiniya oo aan hubaysnayn in la tix raacay qaraaradii taariikhiga ahaa sida qaraarkii golaha guud ee qaramada midoobay ee lambarkiisa uu ahaa 1800 waa 181 ee soo baxay 1947 iyo qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee lambarkiisa uu yahay 242 ee soo baxay 1967 in la xuso ku dhawaaqista dowlad Falastiiniya gaar ahaan golaha qaranka ee Falastiin ee lagu dhawaaqay 1988 qaraarku sidoo kale wuxuu tilmaamay in dalal Carbeed qaarkood ay diyaar u yihiin inay xiriirka Israa'iil ay la yeeshaan haddii ay jirto waddo cad oo loo marayo dowladnimada Falastiin qaraarkani wuxuu xusayaa bayaankii New York ee 29 bishii July 2025 soo baxay kaas oo cambaareeyay weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil 7 Oktoobar 2023 isla markaasna sheegaya Xamaas inaysan maamuli doonin marka Gaza wuxuuna dib u xaqiijiyay ballanqaadka aqoonsiga dowlad Falastiiniya wuxuu ugu baaqayaa hogaamiyaasha iyo bulshada caalamka inay u shaqeeyaan dhanka heshiis nabadeed oo dhameystiran waxaa xusin mudan in qaraarkan uu yahay mid fudud taasi oo macnaheedu uu yahay in xitaa haddii la ansixiyo uu muujinayo oo kaliya mowqifka sanadka laakiin uusan noqon doonin qaanuun rasmi ah oo u baahan yahay tilaabo ka timaada aqalka wakiilada ee Koongareeska ama madaxweynaha markaasi oo noqon karo mid sharci ah hindise qaanuunaadkan wuxuu isku mar la socdaa oo lala saxiixiyaa oo ka socda labada aqal ee Koongareeska Mareykanka waxaana labadan warqadood loo diray xukuumadda Trump kuwaas oo ku baaqaya in la aqoonsado dowlad Falastiiniyiinta ay yeeshaan waxaana saxiixay goor horeba dhowr iyo 10 xubnood oo ka tirsan aqalka Koongareeska ee waddanka Mareykanka waaye arrintan marka waxay u muuqataa inay dhan u socoto waxaa suurtagal xaqii feeraha inuu ka dilaaco dadkana Falastiiniinta ee dulmanaa 80 sano inay helaan bal dowlad haba joogta military iyo siyaalan iyo ciidan iyo siyaalan iyo sacboolay ha noqotee bal horta dowlad la aqoonsan yahay horta inay yeeshaan dadkan xuquuqdoodii ayaa dadku ay ka doodayaan ilaa haddii dowladdan la aqoonsado oo rasmi ay noqoto hadhowtid ayadaa danaheeda taqaan day military samaysanaysa iyo haddii ay ku ekaanaysa booliis iyo sacboolay وهاجاج وركاسنا أنت أصلا كجذبنا مركان واحد نقول بينا شيء ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabeyn jirnay alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen waxaan idin hayaa sheekada la yaab kale ee ku saabsan gaariga halkan idin kaga muuqda ee gaari caruureedka ah waa Mercedes shirkadda Mercedes baa samaysay waxaa loo tala galay in caruurta ay ku ciyaarto gaari caadi ma ah waa gaari yar oo lagu tala galay ilmaha laakiin lacagtiisu ma aha lacag sahlan gaarigan waxaa la sheegayaa in qiimihiisu uu yahay $49,000 Mareykanka ah noociisu waa SL 300 nuqulkii ugu horeeyay ee baabuurkan caanka ah ayaa horey waxaa loo soo saaray 1950 ilaa 60 wuxuuna ahaa gaari si heer sare loo farsameeyay waxaa loogu talagalay dadka jecel gawaarida raaxada iyo nashada taariikhiga waxaa lagu xayeysiinayaa haatan gaarigan in uu yahay baabuur caruurta ay jeceshahay xitaa dadka waaweyn mararka qaarkood in iska fuula bay jecel yihiin baa la leeyahay ninka soo laka caruurta loogu talagalay wuxuu leeyahay koronto motor koronto ku shaqeeya ayaan ula jeedaa oo 1.5 kilowatt ah wuxuuna gaari karaa xawaare 45 kilomitir saacadii wuxuu kaloo leeyahay kursi maqaar ah oo la hagaajin karo muraayad laga sameeyay qalabka aluminiyumka iyo waliba nalal shaqeynaya taasi oo muujinaysa xitaa inuu yahay sida baabuur caadi ah oo kale inkastoo sidaas qaali uu yahay haddana waxaa la sheegayaa xitaa gawaarida qaarkood ayuu ka qaalisan yahay marka waxaa leeyahay haddii aad jeceshahay caruurtaada inaad u iibiso baabuur raaxo leh gaarigan baad u iibin kartaa waa hagaag waa niba tabartiis 49,000 baabuur yar loogu talagalay caruurta inay ku ciyaarto ka bixi waa hagaag inta ayaan kusoo gabagabeynaya caawa barnaamijkii oo aan ku mahadsantahay daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo